ma ogtahay in dunidu qarka u saaran tahay bilaabashada dagaalkii saddexaad ee adduunka tusaale ahaan ruushka iyo nato xaaladoodu waa isu xumaanaysaa kadib markii Ukraine loo fasaxay inay adeegsadaan gantaalada ridada dhaadheer ee nato dhanka ruushka waxa uu horey u sheegay in gantaaladan haddii loo ogolaado Ukraine ay la micno tahay in dagaalka si toos ah ay ugu soo biirtay nato isagoona ruushku sheegay in ay ciidamada Ukraine aysan lahayn khibrad ay ku isticmaalaan gantaalada ridada dhaadheer ee uu Mareykanku farsameeyay ayna ku qasban yihiin adeegsiga gantaaladan in ay ka qayb qaataan khubaro military oo ka socota wadamada nato ruushku waxa uu horey uga digay in haddii Ukraine gantaaladan loo fasaxo ay u adeegsan karaan weerar ka dhan ah ruushka isla markaana uu ruushku jawaab cad ka bixin doono waliba ay suuragal tahay inuu isticmaalo hubka sida baan wax u gumaaday ee nuclearka iyadoo la arkayay in ruushka hubkiisa la geeyay xarumo kala duwan isla markaana magaalooyinka waaweyn ee ruushka lagu xiray qalab ka hortaga shucaaca nuclearka qodobadan iyo qodobo kale waxay muujinayaan suuragalnimada dagaalka saddexaad ee adduunka wadamada reer Yurub ayaa intooda badan waxa ay muwaadiniintooda ku tababarayaan sida ay ula qabatimi lahaayeen nolosha adag haddii dunidu dagaalka saddexaad ee adduunka ka dhaco siyaasiyiinta mayalka adag ee ruushka ayaa su'aalo badan ka keenay sababta ay u haystaan hubkan istiraatiijiga ee nuclearka haddii aysan kaga falcelinaynin qataraha ay soo wajaha dalkooda khubarada militariga ayaa waxa ay sheegeen in la filayo weerar rogaal celis oo ka yimaada dhanka ruushka inkastoo aan si dhab ah loo aqoonsan karin sida uu ruushku ula macaamili doono xaaladda soo korortay ee ka dhalatay gantaalada horumarsan ee Ukraine iyadoo ay bilowday Ukraine inay ku garaacdo gudaha ruushka cabsida laga qabo inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka lana isku isticmaalo hubka nuclearka ayaa sii xoogaysanaysa